madaxtooyada waxaa ka talinaya xilligaas oo nin baa ku dhex jiray oo Tigray ahay oo dhibaato badan ama xukun kasta ama wax kale oo la soo saaray asaga mas'uulka ahay maantani wuxuu naga doonayaa waxay tahay wali inuu xil ka raadiyo ama doorashada oo raba inuu ka soo qayb galo waliba waalidkiisa yihiin dad culimo ay yihiin reerkiisa yihiin reer culimo ay yihiin ayuu wuxuu u sujuudayay gaalo dhimatay waliba dhibaato badan ku wada dalkii ayuu waliba u sujuudayay noo muuqato wada aragnay balse ninka ka ay wali doonayay inuu xil naga raadiyo ayaa sida taa Soomaaliyay ninka aan xil ku dhiibanayno ha noqdo nin dalka wax u taraayo nin shalay gabdhaheena ka gadaayay wadamo shisheeye meeshii la rabay inuu shaqaaleysiyo oo ku shaqaaleysiyo dalkii ayuu wuxuu ka iibiyay wadamo sida carabta oo kale oo gabdhaheen aad ugu cabaadayay ayuu waliba ka iibinayay waliba ku bedelinayay lacago oo ku tartamo oo ku soo galo doorashada sidoo kale wuxuu afkiisa oo ka cadeeyay oo yiri qaraxii ka dhaca Muqdisho iyo qaraxa ka dhaco Kenya waxa ay iga xanuun badan kan Kenya ka dhacay ay iga xanuun badan wuxuu hadalkaas u leeyahay ama u oranay wax kala ma ahayn waa doorashada sidoo dib ugu soo laaban lahay loogana caawi lahay ee u caawi lahayeen wadamada sida Carabta iyo wadamada dariska la ah Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh awadaasha qaliga waqti kasta idin tahay wanaagsan oo wacan ومر كلا فيديو كلا تأذو قروح بدن فضلا هذا النوع عصبتهاي بيج كان فلو ده والله جري سين الشر جري برامج هذا كسوق جارو ومر كلا فيديو كلا تأذو حساب بدن وحميز كينو صارن فيديو عن كجر جري دونه حالة الصحة كتاجن سياسة ده سيدو كلا تو حميز كينو صارن أو عن رمنا إنها فلانقين أو عن كهذا النوع مدحويني هراء ذلك مدني حسن الشيخ محمود waxaan rabnaa inaan isbarbar dhigno fiidiyoyadiisa hore iyo kuwa hadda uu ku hadlayay sidoo kale waxaan soo qabtay fiidiyo oo runtii kala saari doono xasan sheekhi hore iyo xasan sheekh maantay ah waxaan rabnaa inaan kala ogaano qofku markuu xilka hayo sidoo u gubto sidii xaaladda u kululeyso iyo markuu soo xilka haynin balse oo doonayo xil kursi oo raadinayo sidoo xaaladiisa ay tahay waxaan soo qaban doonaa fiidiyogan ugu horeeyo bal aan wada aragno oo aan daawano xaaladda sidii uu ahay xilliga uu ahay madaxweynaha aan ku bilaawno fiidiyogeena aan wada aragna qeyrta dawladda marka waxaan rabnaa in laga daayo dabaal waayo waa boodeen in la yiraahan rabnaa waa qaldane laakiin waa boodeen muxuu ahay hor u soco in la yiraahan rabnaa laakiin bal fiir waxay sameeyeen hadii la yiraahdo برينا متكلم ما أنت بروح عن قارين أنا والد كبوقة بس كذا فحان يعني كبوقة بالناس جوش هذا دعدي إن بدرهم كم ذا دعدي وحواي مركو حلك هاي وحوج على إن لده واتفي عنتهين هذا ونكسنتهين هراء الصعد إن لده هاي وجعلاي بس هذا مركي لتشوجو وحور رادينا يا وحيتاي حمانتا دولة أيور راديا بس مركي هراء وحوج على إن لده وح ونكسن أياسو بسن وحفي عن أياسو بسن إن لده أيور جعلا واجي سهرة بس حد وحوج علي هاي أما حد أودونا وحيتاي إنه دولة راديو حمانتا ذا أم حمانتا دولة إنه راديو أيور جعلي هاي نكاس حالات أركتان كجرو يحدث سيدو يهاي بل قيمانت إذنك إذن داي فيديو عن سي وضنا كان هذا ماشي قاد أما رير وبوقات كان هذا أنت جيسد أما محنالك كذا على إيه وحلا مده وزيرك عبسان هاي محوا هاي مدحويني وحي الله وضع بقى رير dadkeenuna maanta yani loyaltiga dawladnimo ma jirto loyaltiga qabiilka jira nin kasto sax waay wuxuu dhahay waxaa jirto dhahay ma jirto dhahay loyalty ama macnaha qaab dawladeed ma jirto dhahay balse waxaa jirto dhahay qaab qabiileed in loo dhaqmo ayaa jirto yiri xilligaas saas oo ay tahay wuxuu nacbay qabiilka in lagu dhaqmo ayuu nacbay balse hadda wuxuu ku dhaqmaa qabiil wuxuu u hadlaa qabiil wuxuu u qabqablayaa waa qabiil ما أهان سيدو هاجري بل سو حد أوجاتان سومالية قفكم مركو حل هايو وحج عليها إن لا رقم سوى نكسن بل سمركو حل كهين وحج عليها أم أور راديا دنك حما تضع وكا نك مدحوينها أم حرك الرادين أيو خاب كاس أيو إجي هاي شالنا قاب كاس وهاي ما أنت قابكو أيها وأركي دونا كسر بالسلية يا أسلادة وحق معنا أقوال مادية أما أقوال دينية وبالسلية أسلادة والله بالله تالله مقع إلهي كدارنا وحارنا حواي غير كيس هدي الله تابتو صح واي
qofka markii la yiraahdo qof hebel waa qaldan tahay oo dawladda tiraahdo xilkan uma qalanta ama xilka laga dhigo ama lagu qabto qaab corruption markii lagu qabto kaleeto ayna qabiil badan ayaa kaco xaalad waxaa dhacday aad u adkeed oo dawladdu ay gaartay heer in dhibaato badan la gaarsiiyo ay gaartay wuxuu ka mid ahay dadkii rabay inay dhibaato badan dawladda inay gaarto jab badan inay gaarto ayuu ka mid ahay saas oo ay tahay wuxuu ka gubanayay in nin xilka laga qaado wuu ka gubanayay wuu ka kululaanay shalana wuxuu lahay markuu xilka hayay qabiilka dad badan qabiilka ay ku dhaqmaan ee dawladnimo kuma dhaqmaan ayuu lahay garu ale leedahay halkaas ayuu taagan yahay madaxweynaha wali waxaan joognaa fiidiyoogii xilliga oo madaxweynaha ahay wali soco uu jirana wax reerkiisu aanay raali ka ahayn markuu arko uu jirana aniga adiga maxaa kugu dhacay reerkan waana maxay wixii 10 milyan oo Soomaali ah yaa laga hadlayaa konton darajo oo jirta sida loogu qaybin lahaa mid bay gaari mid ma gaarayso mid maanta joogay booska waa laga kicinaya mid kale fadhiisan waxa la ii kicin ku leeyahay oo adigu soo meel hebel يعني ما هندوتنا ما يجي وحدنا أنا A B C D عن ربنا وحنا ندي هذي إذا قارت دول دان وبلارته وكذا سام ماشي سام مالك لكن دول دات مركز سائر وحنا نور داير اللي A B C D أو هذا جوجنا إن لا يقعد مرة بس وحنا وفي عنده الذي قاعد ما يكون الضربتين ببنانيين لا أو بنان مياه مسددة جو halkaas aan ku gabagabayno video qaybtiisa koowaad oo xilligii oo ahay madaxweynaha wuxuu nacbay in qabiilka lagu dhaqmo in dhibaato badan qabiilka lagu soobiyo oo dawladda lagu carqaladeeyo ayuu nacbay waagaas bal waxa arki doonaa hadda markuu ahay musharax madaxweyne ama oo ahay mucaaradka oo waliba xataa raadinayo xumaata dawladda xumaatadeeda ama dhibka dawladda uu raadinayay sidoo dhaqmay aan aragno فيديوغان آين سوقت أنا وسيد ومد الصومالي الملك السؤال جوكت الله سعته بريها أنه وحنا حاجات كل جنة دولة وحنا كلا هذا لأن قضيات بدن أو أي كم هذه قضيات برنامبحة وأكتين هالشيء سهو قارن برنامبحة ميدوق مرشحين إنه قبل قابيو دولة دون دور كذا دستوري أو واجب كأقول حكومتنا أي قاعدته أو إن أي أمن سكته بنام بحياشة أمن جود إني سكته وكوهشيني وكوبلني ماشي عن كوبلني وحاصلنا ضاد دير أو حسام مرتين معنا ولا مال لقد دوداي وحلقة دوداي ماشي جديدين مال الوحرانا يو سبرتيبي وحبي شاجان ظروفها جرو كوفيد أو جودتك إن مال الوحرة أنا كان وأنا لقب دنتين مال بنانو أوبن إير وهدتك أي kala durka karaan inaan geynaan go'aanka waa ku adkaysan way aqbaleen waa ku heshiinay daljirka daasoon in banaan baxa lagu dhigo waxaad aragtaan shalay markuu xilka hayay wuxuu lahay dawladda dhibaatada laga daayo dawladda qabiilka lagu kicinaha laga daayo ayuu lahay markuu mucaaradka ahayna wuxuu rabay dawladda inuu dhibaato badan ku furo cilado badan inuu ku furo waliba ayadoo cudur saa'id jiro ayuu wuxuu jeclay in dawladda lagu banaabaxo dhibaato badan lagu kiciyo waliba asoo odaytinimo wax ku raadi karo si ayna macnaha oday dhaqameed ahaan wax ku raadi karo wax ku xalin karo ayuu wuxuu jeclay dawladda inuu ku kiciyo dhibaato badan ninkaas ayaa wuxuu doonayaa xilka mar labaad inuu ku laabto gartu dhexda ay taala inaan gooynana muhiim ay tahay nin shalay gabdhaheena ka gadaayay wadamo shisheeye meeshii la rabay inuu shaqaaleysiiyo oo ku shaqaaleysiiyo dalkii ayuu wuxuu ka iibiyay wadamo sida carabta oo kale oo gabdhaheena aad ugu cabaadayay ayuu waliba ka iibinayay waliba ku bedelinayay lacago oo ku tartamo oo ku soo galo doorashada sidoo kale wuxuu afkiisa oo ka cadeeyay oo yiri qaraxii ka dhaca Muqdisho iyo qaraxa ka dhaco Kenya waxa iga xanuun badan kan Kenya ka dhacay iga xanuun badan wuxuu hadalkaas u leeyahay ama u oranay wax kala ma ahayn waa doorashada sidoo dib ugu soo laaban lahay loogana caawi lahay ee u caawi lahayeen wadamada sida Carabta iyo wadamada dariska la ah madaxtooyada waxa ka talinaya xilligaas oo nin baa ku dhex jiray oo Tigray ahay oo dhibaato badan ama xukun kasta ama wax kale oo la soo saaray asaga mas'uul ka ahay maantani wuxuu naga doonayaa waxay tahay wali inuu xil ka raadiyo ama doorashada oo raba inuu ka soo qayb galo
qof noocaas ah doorasho noogama soo qaybgalayay waxaa ka soo qaybgalaya doorashada waxay tahay nin u baahan ama nin dalkii rabo inuu ka samato bixiyo qabyaaladii dulooday ama dhibaatadii 30 sano ku soo dhex jirtay oo wali aanan horumar laga gaarin ninkii aanan ku fakirin inuu ka bixiyo ku fakiray inuu dib ugu soo laabto xilka lacagna ku bixiyay wax kasta oo ku soo bikaran ku soo biyay ayaa raba maanta inuu saas dib ugu soo laabto sidoo kaleeto waa nin diinta haysto islaamka waliba waalidkiisa yihiin dad culimo ay yihiin reerkiisa yihiin reer culimo ay yihiin ayuu wuxuu u sujuudayay gaalo dhimatay waliba dhibaato badan ku wada dalkii ayuu waliba u sujuudayay noo muuqato wada aragnay balse ninka ka ay wali doonayo inuu xil naga raadiyo ayaa sida taa Soomaaliyay ninka aan xilku u dhiibanayno ha noqdo nin dalka wax u taraayo oo qabiil aan wax u taraynin ee ka fogaanaya qabiilka u imaanayo wadaniyada saxda ee Soomaalinimada ninkaas ayaa dalka wax ka qaban karo ninkaas ayaa wax u tari kara Soomaaliyay maanta waxba nooma taro nin qabyaaladiista ah rabay shalay inaan qabiil lagu weerarin balse maanta doonaa inuu qabiil maanta dadka ku kiciyo mucaaradnimada qabiil ku soo biyo waliba xataa qaybta uu ka tirsan yahay waliba ay tahay qabiil isku wada aadan ee ahayn dad isku dhex jiro marka shalay ninaan aragnay soo tijaabinay waliba xataa lacagihii ama ragii ku xisbiga ahay ee waliba xataa kala ahay damo jadid la ahay waliba xataa garoonka diyaaradaha aadan cad u dhow oo kaga gadayay boosaska siinayay boosaskii danda guud ahayd oo wuxuu ku bixinayay rag inay doorasho dib ugu soo celiyaan ninkaas ayaa xil doonayo ninkaas ayaa xil naga rabo warbaahinta afka qabtay warbaahinta xiraayay waliba aan wada ogsoonahay idaacad weyn ee Soomaali laga yaqaan oo ugu afka dheer waliba sanad iyo bar ku dhawaad xabsi wada geliyay wariyaashooda xirxiray ninkaas ayaa rabo inuu dalka xukumo mar labaad Soomaaliyay qabiil waan ka gudubnay waxaan u gudubnay wadaniyad nin wadani ah ayaan soo dooranayna halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii aawadnay waa mar kale iyo video kale aad u xiiso badan waan idin salaamayaa dhammaan daawadayaasha qaaliga